munaasabada ay xilliga kula kala wareegayeen taliyaha cusub ee saldhigga degmada Balanbale iyo ku-xigeenkiisa iyo taliyihii hore saldhigga oo ay goobjoog ka ahaayeen taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka ayaa lagu qabtay magaalada Balanbale. munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada iyo saraakiil ka tirsan booliiska iyo taliyaha saldhigga booliiska Matabaan. taliyaha qaybta booliiska gobolka Gaashaanle Sare Maxamuud laga horeeyaa ugu horreyn ka hadlay goobta waxaana uu sheegay in loo baahan yahay isbedel lab ah oo booliisku ay la yimaadaan isla markaana booliisku yahay adeegaha shacabka iyo ilaaliyaha shacabka. taliyihii hore saldhigga booliiska degmada Balanbale ayaa isna goobta ka hadlay waxaana uu sheegay inay la shaqeyn doonaan taliyaha cusub oo na si weyn u soo dhaweyn doono. kiisha la socota meeshan waxa weeye saldhigga degmada Balanbale oo ma garanaysaa in badan u soo dhabar adeegay wixii hawla iyo wixii dhiba degmadooduna ku qanacsanayd ayaguna u shaqeynayay si voluntary ah. maantana waxaan jeclahay inaan ku wareejiyo taliyaha saldhigga cusub Gaashaanle Maxamed Torey. halkan waxa weeye ciidankan wuxuu isugu jiraa ciidan cusub oo adigu ilaa 2009 ah iyo kuwa isyaana ah. kuwa kale cusub waxa weeye waa 93 askari weyn. kuwa kale waxa weeye 47 askari. fasax waxa ku maqan 2 askari 7 koorsay ku maqan tahay. mid waa isbitaal 2 waxa weeye 3 waxa weeye shaqo leexsan oo mid wuxuu ka shaqeeyaa jaamacadda 2na waxa weeye istaafyada madaxda. tiro guudna waxa weeye 140 askari. waxay leeyihiin hal mooto iyo hal kaarib. waxaa yaalla oo kale 12 xabo oo soolar ah oo aan la isticmaalin oo ay kala hareen isbeetarkii iyo 8 bateri oo ayaguna waxaan ka baqnaaba inay nagu qarxaan marmar si dabku ugu socdo waa waxay nagu taraambe. waxaa taalla 13 kursi 4 miis iyo 5 kursi. haddana waxaan ku wareejinayaa dukumiintigii ciidanka hadday saa tahay haddii ay tahay hub hadday tahay gaadiid hadday tahay wax kasta oo obadweel uu leeyahay saldhiggu waxaan ku wareejiyey taliyaha cusub Balanbale. taliyaha cusub ee saldhigga booliiska degmada Balanbale Gaashaanle Sare Maxamed Cabdirasaaq Tooreeye ayaa shacabka reer Balanbale kul bogaadiyay sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen waxaana ugu baaqay shacabka degmada Balanbale in markasta lagu dadaalo xoojinta ammaanka. alxamdulillah suma salaatu wa salaamu ala rasuulillah amma ba'd. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan saraakiisha iyo saraakiil xigeenta dableyda iyo ciidanka dhammaan halkaan ugu imid reer Balanbale. waxaan kaloo aad ugu hambalyeeyaa saaxiibka Shiine oo si sharaf leh oo qurux badan oo wanaag leh igu wareejiyay xilkii inta muddada soo hayay. anigu waxaan rajaynayaa inaan halkaas ka sii wado dabadiisna aan deegaanka inta horumar soo gaarsiiyay iyo in ka sii badan sii gaarsiiyo waanu ka shaqeyno heerkii uu gaarsiiyay horumarka iyo arrimaha bulshada iyo ilaalinta iyo dawladda nafta iyo hantida dadweynaha oo shaqadoonadu ay tahay. gudoomiyaha degmada Balanbale Jaamac Xayla ayaa taliska booliiska ku bogaadiyay isbedelka lagu sameeyay saldhigyada booliiska deegaanada Galmudug waxaana uu soo dhaweeyay taliyaasha cusub ee saldhigga booliiska degmada Balanbale. taliya ku-xigeenka saldhigga Balanbale saraakiisha gobolka iyo degmooyinka kale ka timid sida Matabaan iyo Gurceel iyo Dhuusamareeb ciidanka booliiska degmada Balanbale dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi maanta waxaa sharaf iyo farxad noo ah halkan inay isugu yimaadaan saraakiishii gobolka galguduud saldhigyadooda joogay iyo taliya ku-xigeenkii saldhigga Balanbale oo loo soo bedelay iyagoo galbinahaya. waxaan marka koobaad ku faraxsannahay sida ciidanka booliiska gobolka galguduud ama dowlad goboleedka Galmudugba ay u shaqeynayaan oo loo abaabulay oo loo soo kala bedelay oo saldhigyada loogu sameeyay saraakiisha cusub oo aqoonta iyo tababarka leh
dowladda dhexe iyo ciidanka booliska waa uga hambalyeynayna. gabagabadii munaasabadan xil wareejintana waxaa ka hadlay taliyaha saldhigga booliska Matabaan iyo saraakiil la socotay goobjoog ka ahaa waxaana shacabka ay reer Balanballe ku amaaneen sida ay u dadaaleen ammaanka uga wada shaqeeyeen waxaana ugu baaqeen in si dhab ah loola shaqeeyo madaxda cusub ee loo soo magacaabay saldhigga booliska magaalada Balanballe. ujeedkan inta u imaana waxay ahayd saraakiishii dhawaan la soo magacaabay ayaa mid kasta waxa la geynayay taliskii loo soo magacaabay marka sidaas ayaan ku imaanay taliyaha iyo taliye ku-xigeenka oo shaqadoodii si rasmi ah kula wareegay oo raba inay deegaankan ka howlgalaan ayaan anaguna bogaadinaynay meesha keenaynay una hambalyeynay marka waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo saraakiishii ka soo shaqeysay degmada Balanbal ee hadda xilligan xasiloonida buuxda ay ka jirto. waxaan rabaa saraakiisha cusub iyo saraakiishii horeba inaan uga mahad celiyo. saraakiishii hore waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo shaqada wanaagsan ay qabteen. kuwa kalena hadda shaqada la wareegayana waxaan rabaa inaan ku dhiirigelino kulana dardaaranno inay dalkooda u shaqeeyaan uga la shaqeeyaan si wanaagsan hufan ka hufan qabyaalad ka hufan iyo maxaa tiray jeclaysi inay ku shaqeey doonaan Ilaahay yiraahdo ayaan kula dardaarmeynaa. Bashir Yusuf Nadaara TV-ga caalamiga ee dalka magaalada Balanballe.